dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan baaq ugu dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda magaalada Muqdisho waxaan leeyahay maanta maadaama ay soo dhowdahay bishii Ramadaan ee barakeysneed waxaan leeyahay inay ummadda Soomaaliyeed ay u gargaaraan ganacsigoodii inay sameeyaan sicirka inay jibiyaan maadaama ummadda Soomaaliyeed ee bishan Ramadaan ay bishii ugu barakeysneed oo la bixin lahaa ay tahay sadaqada ganacsiga waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed sicirka hal laga jibiyo ummadda Soomaaliyeed qof maanta 12 ka soo shaqo tagay oo magaalada soo aaday oo wax ku filneen oo soo helaa laga yaabaa maadaama inta uu soo shaqeeyay oo ku filneen ganacsigana sicir bararkiisana xoogaa ay kulushahay waxaan rajaynayaa inaad bishaan ka faa'iideysataan sadaqada aad baxsataan ummadda u gargaartaan waxaan idinka rajaynayaa baaqayga inaad dhageysataan ummadana u gargaartaan bisha Ramadaan farligeeda maadaama bisha Ramadaan ee farligeeda uu weyn yahay laba ajir inaad qaadataan qofka muslimka aad u gargaartaan iyo bishii Ramadaan oo farligeeda uu aad u weynaa iyadana inaad ka ajir qaadataan baaqaas idinku soo jeedina ganacsatada Soomaaliyeed qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed way dhibaataysan tahay qaasatan ku nool caasimadda gobolka Banaadir waa inaad isku gargaartaan barnaamijka taakulo oo loogu talagalay in lagu gargaaro ummadda ku nool caasimadda gobolka Banaadir bulshooyinka ku nool in wax loogu qabto afurkii taasna waxaan leeyahay ummad kasta oo Soomaaliya meel kasta ay joogto dalka iyo dibadda inaad gacan weyn aad ka geysataan barnaamijka taakulo oo loogu talagalay caasimadda dadka ku nool in lagu afuriyo ganacsatada waxaan leeyahay iyagana inay qayb weyn ka qaataan shirkadaha sidoo kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed baaqaas u jeedina bisha Ramadaan waa nagu soo food leedahay waxaan rajaynaa in isbedel oo ka yimaado caasimadda gobolka Banaadir aad ka sameysaan ganacsatada oo ku nool caasimadda gobolka Banaadir baaqeena si fiican u dhageysta waxaan idinka rajaynaynaa inaad gacan nagu sii doontaan insha Allah wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.